بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها دولة قبلتك كوفر قلبات مدنة عبد العزيز آد أيان مهد علينيا سو دوينتيسة dadka reer koonfur galbeed qaybahooda kala duwanna sidoo kale waa u mahad celinayaa soo dhaweyntii diiraneyd ee lagu soo dhaweeyay deegaankan iyo dowlad goboleedkan iyo caasimadiisa ku meel gaarka ah magaalada Baydhabo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin ayaan leeyahay. intaas kadib wixii wanaag ahaayo halkan laga sheegay oo dhan ayaan aad iyo aad u ayidsanahay iyo wixii wanaag ahaay oo dadka reer koonfur galbeed ay shalay iyo maanta iyo xalay ay noo sheegeen oo dhan intii aan gaari karnay oo aan isu dayi karnay waa dadka reer koonfur galbeed waa isku daynay inaan gaarno ayaguna intiina soo gaari kartay waa isku dayeen inayna soo gaaraan waana wada fariisanay aad iyo aad ayaan u sheekaysanay. waxaan ka hadalnay duruufaha dalka guud ahaan iyo gaar ahaan deegaankan duruufaha ka jira. runtii deegaankan duruufo gaaraha ka jira duruufahaas oo dalka Soomaaliya qaybo ka midana ay la wadaagaan qaybana ay waxyaabo qaarkood duruufo qaarkoodna ayaga ay u gaar yihiin sida deegaan kastaba duruufo u gaar oo u leeyahay ayaa koonfur galbeedna waxay leedahay duruufo u gaar oo ayada u gaara. hase yeeshee deegaankan deegaan la yaqaano oo ka mid ah deegaanada wax soo saarka dalkan ku leh wax soo saarku waa sii kala daran yahay weliba ee wax soo saarka xagga cuntada ku leh ahay dadka Soomaalida 70% miyiga ay degan yihiin. dadkaasi inta badan miyiga baasta iyo bariis lagama cuno soora laga cunaa soortana inta badan masaga laga karsadaa masagada laga karsadana deegaankan ka bixi jirtay laakiin duruufihii siyaasadeed iyo nimankan nabadiidka ah oo dalka ku soo biiray iyo cimilada isbedeshay awgeed waa isbedeleen xaaladahaasi. maanta dadka koonfur galbeed waxaa lagu khasbay ay ku khasboonaadeen inay guryahoodii iyo beerahoodii iyo meelihii ay wax ka soo saari jireen ay ka soo cararaan oo ay magaalooyinkan soo galaan oo ay maxaan ku irahdaa ku tiirsanaadaan kaalmo dadka Soomaaliyeed ama dibadda ka timaado. dadkii shalay dadka Soomaaliyeed raashinka ay cunaan kuwa ugu muhiimsan soo saari jiray oo laga qaadi jiray dabcan qofna waxa uu gurigiisa u baahan yahay suuqa ma geeyo dadkaana masagaa suuqa ay geey jireen laga gadan jiray macnaheedu waxay ahayday waxay ayagu u baahnaayeen markay meel dhigteen inta zaa'idka ahayd ayay suuqa geey jireen wax soo saarkooda. intaasaa Soomaaliya oo dhan marka gaari jirtay oo la qaadi jiray oo la sii kala qaadi jiray suuqyada waaweyn inta la geeyo dadka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan gaari jirtay. nasiib darro maanta meesha u dhimaday hadalka hadda madaxweynuhu uu sheegayeen dadkii maanta aan la kulanay hadalkii ay nagu yiraahdeen ayuu ahaa beerta ma tacbi kartid beesa haddaadan bixin beesa aan bixinana ma haysano. waxay ku soo dhammaatay inaan yaamba intaan qaadana beertii aanan tacbi karin xoolahiina waa dhammaadeen oo waa abaartii ay ku dhammaadeen. fursad kale maanaan qabin oo aan ahayn inaan soo baxnan inta nimaado ma jeclayn inay soo baxaan ma jeclayn meesha ay yimaadaan inay yimaadaan ma jeclayn duruufta ay ku sugeen inay ku sugnaadaan. qaarkood markay nala hadlayeen indhahooda ilina kusoo istaagaysay aad iyo aad ayay anagana shucuurtaan u taabatay oo sidoo kale ah dad sharaf iyo karaamo iyo cizi leh oo xor ah oo isla weyn oo degaankooda degan oo isku filan oo ayagu inay wax kaalmeeyaan moogiya aan in la kaalmeeyo aan u baahanin yaa lagu khasbay inay muxuu ahay kaalmo bini aadam iyo kaalmo dadeed inay ku tiirsanaadaan noloshoodii markii ay ka baqeen inay ayaga iyo caruurtooda ay naftooda ay halis gasho. duruuftaas waxaa keenay nimankaas cadowga ah dalka jooga nimanka cadowga ah dalka joogahay xaaladooda meeshaasay dadka gaarsiiyo waayaan wax ma tacba kartid awal waxay ahayd waxaad haysataan kaa qaadana meelaha qaarkood iyo deegaanada qaarkood walxaa laga qaataa ganacsiga dukaanka meelaha kan wixii ugu hooseey waa beer dhulkaanan tacba roobka ilaahay keenayaan muxuu ku tacbana waxaan soo saarta anna waa cunaa dadka Soomaaliyeedna waa ila cunayaan in la yiraahdo maya
ma yeeli kartid ma tacba kartid haddaadan beesa dhiibeen dadkuna beesa gurigooda kuma haystaan mana badarka ay tacbaanay beesa marka duruufaha dadka cadowga nabadiidku meeshaasuu maraa maanta dadka soomaaliyeed inay fahmaan aan rabnaa nimankaas waxa ugu dhiman iyo waxa ka jira inay ogaadaan iskama kici waayeen cadowga noocaasa annagaa wax naga khaldan yihiin waxaan rabnaa waa sababta aan u dhahnay soomaali heshiisa ha la helo soomaali heshiisa markaan helno cadowgana waa iska celi karnaa dhaqaalaheennana waa isku filnaa karnaa dowladnimadeennana waa xooji karnaa laakiin qalbigeenna intuu kala jiro oo aan shalay ku noolnahay kii shalay dhacay kii shalay dilay kii shalay reerkanaga muxuu ahay wax ka bi'iyey kii shalay maxaan ku irahday kursigii iga qaatay oo maxaan ku irahday xildhibaannimada kii shalay maxaan ku irahday iyeelay haddaan taagnaano oo aan shalay la noolaano maantaa shalay noqonay birina shalay noqonay marka biri qurxoonna ma arkeyno biri daba qurxoonna ma arkeyno lanna annaga dhamaaba shalay ku nool adduunyada waa 3 maalmood waa shalay maanta iyo biri shalay waa la soo maray ma soo celi karno wixii aan rabnay hadday noo qabsoomi waayeenna wixii asbaabtii noo qabsoomi waay inaan inta ka tashano biri inay noo qabsoomaan wixii aan rabnay aan isla meel dhigano aan ka shaqeyno laakiin shalay say u dhaceen say u dhacday see loo yeelay soo ii yiri say ka dhacday wax badan uguma soo kordhinayso waxaan rabaa marka dadka soomaaliyeed oo ay ugu horeyso dadka reer koonfur galbeed shalay aan ka nimaado dalkan nidaam dimuqraadi ah oo dowladihiisu dimuqraadi tahay ayaa ka dhashay oo hore u socdo oo koraayo oo maalinba talaab sii qaadayo doorashada shalay haddaad weyday beriyaad helay waa soo socotaa yacni shalay haddaad weyday inaad weligaa weyday ma aha shaqayso u diyaar garow 4 sano kabacdii imaanaya haddana u diyaar garow soomaaliya wax badanay soo baratay maalintii maalin walba waxa ay haysatay intay la xumaadaan iska tuurtay ee walax kala raadi jirta waa laga yimiday waa lagu soo wada qancay wixii la tuuray wixii xumaay waa la sidii loo tuuray wixii fiicnaay oo khalad lagu tuuray in la soo ceshado dadku waa ku soo wada qanceen markii ugu horeysay taariikhda ayaa madaxweyne mar labaad la doortaan anigu noqday markii ugu horeysay taariikhda ayaa guddoomiye baarlamaan oo mar la doortay guddoomiye golo shacab oo la doortay mar labaad lasoo doortay aqal sare taariikh dheer kuma lihiin laakiin labadii maruu jiraba ayadoo kuwaas kale laga shidaal qaadanayo ayadana in maxaan ku irahdaa la soo celiyo waxaana lagu tuhmaayo iyo khibradday waaye aragnimadana lagu tuhmaayo allah naga soo sahlo waana dadaalaynaa ilaahay idankiisa in la yiraahdo nacam khibraddu waxbay tartaa in la yiraahdo lama kala aqoon badna shahaadooyin waaweyn waa la wada sitaa soomaali waa la wada yahay muwaadiniin ah yacni citizen lama kala budna kursiga laakiin khibradda waaye aragnimada maxaan ku irahdaa waxbaa la tixgeliyay leedahay khibradda iyo waaye aragnimada iyo nabadoonnimada nalagu tuhmaayo oo dadku ay nooga shaki qabaan kuwii la yimaado oo dadkooda ay yiraahdeen nacam alla ilaahay sidaan ku doorana sidaanay ahayd annagana allah naga dhigo waana ku dadaalaynaa intaas kadib waqti ma hayno aan isjiijiidno isxaxagano inaan cadowga iska dulqaadno inaan dhaqaalaheena soo celino xukunka dowladnimada inuu inta baaho meesha ugu hooseyso uu gaaro dadka agtiisa uu gaaro oo dadka maxaan ku irahday degmada iyo tuulada degane talada tooda ah ay wax ku lahaadaan mustawahi doonaan ha uga lahaadaane hal midaa naga xigto inaan cadowga maanta jooga ee nabadiidka inaan iska dulqaadna ha naga xigto cadowga nabadiidkana si aan isaga dulqaadna ayadana hal waxaa naga xigo inaan heshiinaa naga xigto soomaali heshiis ah naga xigto deegaankan inuu heshiiyo deegaanka ku xiga la heshiiyo kan ka sii fogoo kale ay heshiiyaan soomaaliya oo dhan ay heshiiso
oo la helo Soomaali heshiisa oo heshiisku ah dowladnimo danaha koonfur galbeed ee koonfur galbeed ka jiraay Puntland kula heshiimayso danaheeda Hirshabeellana kula heshiimayso Jubbaland kula heshiimayso danaha koonfur galbeed reer koonfur galbeeda iskale ayaga u tashana waxaan ka heshiinayna oo aan ku heshiinayna waa waxa naga dhaxeeyo laawi cadda kan jooga iyo maxaan ku raad Dhobley kan jooga iyo maxaan ku raad Cape Gordafoy kan jooga inta u dhaxaysa dadka Soomaaliyeed ee ku nool waxa ka dhaxeeya ka heshii karaan waxa u kala gaargaarka waa kala leeyihiin waa kala maamulanayaan ayaga mas'uuliyiin u dhiibanayo ayaga iska leh laakiin dowladnimada aan naga dhaxayso qaranka naga dhaxeeya hal ummadana saan u ilaashalahayn dowladnimada saan qarankeena u ilaashalahayn qaranku waa ilaalinta diinta ilaalinta dhaqanka ilaalinta afka ilaalinta maxaan ku raadaay maxaan ku raadaay jiri qofna cidda aan nahay isirkeena waxaasoo dhan ilaalis u baahan yihiin waxa aan ka heshiinayna waxa waaye inay ilaalis u baahan yihiin ka heshiimayna waa ku wada qanacsanahay sida loo ilaalinayaan ka heshiinaynaa si wiil inta gurigiisa iska seexdo inta soo kac inuu yidhaa anaa garanaya sidaana la yeelayaa ma aha dowladnimo waa dastuur waa qaanuun dastuur iyo qaanuunna waa wax lagu heshiiyo oo laysla ogolaaday yacni waxyaabaha cajiibka oo meelo badan oo Soomaaliya aan ka jirin oo u gaarka ah koonfur galbeed waxaa ka mid ah meel walba xeer Soomaali waa jira oo xeer degaameeda jiro laakiin deegaankan dowlad goboleedkan iyo dadkiisa xeerka warta biyaha xeerarka ay leedahay xeerar unique oo Soomaali inteeda kale ay in badan oo ka mid ah waa leeyihiin Soomaalida xeerar laakiin aniga baadiyan ku soo koray muddo dheer soo joogay xoolo dhaqato ku soo ahay warar badan oo biyo laga cabaan xoolo geeyay aan soo joogay ma lahayn warta deegaanada ku taalo xeerka ay leedahay sida loo ilaaliyo oo aan loogu takrifali karin iyo structure-ka xukunka ay kala leedahay wax oo u gaara deegaankan oo aad iyo aad u weyn waay waa la dhowraa laguma xadgudbo warta xeerkeeda haddaan ilaalinayno dowladnimada xeerkeeda maan ilaalin weyne dowladnimada xeerkeeda inaan ilaalino waayo gartu gacmo la-aanay geedka ugu xirtay haa la dhahay gartu war waaye markaan banaanka joogno xeerkeena waa hadal laysu gudbiyo fac ka fac oo waxaasaa lagu heshiiyey waxaasaa lagu heshiiyey waxaasaa lagu heshiiyey qofkii waxaa sameeya waxaasaa casaarme intaasaa la saara saasaa la yeela saa lagu heshiiyey sidiyaa la yeela qofka ma diidi karo gartiyo socoto gacmaloo qof soo qaqabanaysana ma jirto inta imaaw ratigaaga guriga aad reerka u dhaansatidkaan waa la gowracaa intaa la bireynaa intaasoo neef inta kusoo xir saan yeel gar waay ma diidi karo qofku waa yeela dastuurka aan leenahay qabyo waaye waa naga kala dhiman yahay ilaahay idankiis waa dhammaystireynaa waa u istaageynaa inuu dhammaystirmo muddo gaaban waa ka shaqaynaynaa laakiin dastuurka warqaduu ku yaallaa gacmo mala oo kugu soo qabsado dadka kuu soo qabanaya haddaanan dastuurka aadan inay fuliyaan adiga aadan raalli ka ahayn kuma soo qaban karaan adoo dastuurka ixtiraamaya ku soo qaban karaan qawaaniintay kugu soo qaban karaan gartu gacmo la-aanay geed kugu xirtaa waay waxaan rabnaa waxa aan ku heshiina inaan ilaalino qawaaniinta inaan ilaalino dastuurka inaan ilaalino ma isjeclaanayna haddii kale maalin walba khilaaf iyo dagaal iyo dood iyo waxaan ku jiraynaa iyo isqabqabsi dastuurka federaalka qawaaniinta federaalka soomaalidoo dhan ka dhexaysa waa inaan ilaalinaa dastuurka koonfur galbeed qawaaniinta koonfur galbeed xeerarkeedana waa inaan ilaalinaa iyadan waa ku kala ammaan helaynaa waa isku jeclaanaynaa waa isku ixtiraamaynaa mugaa intaas ilaalino haddii kale intaasaa naga dhumay waana intaan u baahna 32 sano muddo dheer waaye oon duruufahan gaarkaa ku sugannahay
ummad ahaan waa u jirnaa waana u sii jiraynaa cimriga ummaduhuna 32 sano iyo waa ka weyn yahay waana ka badan yahay laakiin annaga cumrigayna 32 sano ay ku badan tahay dadka aniga aan ka mid ahay madaxweyne cabdicasiis iyo rag badan oo mas'uuliyiin iyo gabdho badan oo mas'uuliyiin meeshaan fadhiyo cimrigooda maanta ilaahay cimri sibeero soo gaaray muddada noo dhiman marka bini aadanana waa yar tahay muddadaas inaan wax qabanaana laga rabaa oon ka tagno kuwii xorriyadda dhaliyey isticmaalka naga dul qaaday calankan buluuga ah keenay dowladnimada aasaasa maanta ma noolo laakiin haddana kulli waa sheegnaa soo maha magacyadoodan sheegnaa wax fiicanay sameeyeenaan dhahnaa waa u duceynaa berri annagana sidaasoo kale in loogu duceeyo oo wax fiicanna naga sheegaan rabnaa kuwii cadowga naga dul qaaday shabaabkii dulliga ah diinteenna xaniifka ah ee maxaan ku irahdaa dulmiga ku sameeyey kuwii naga dul qaaday kuwii dalada fiican jidka fiican noo horseeday in nala dhahaan rabnaa laakiin shaqay naga xigtaa waxaan rabaa dadka koonfur galbeed dowladda federaalka xaggeeda nabadaa idinka jirto saaxiibtinimaa idinka jirto mas-uuliyad iyo dadkii idinku aad xilka u dhiibateen si toosan iyo si dadbanba aad xilka u dhiibateen ood adika aad wakiilateenaa idinka jiro shar iyo colaad iyo abaabul qaab daran iyo magaciisii idinkama jiraan xaggaas bes waxaan codsanaynaa idinku adkaynaynaa dhexdiinana inaad sidaasoo kale ka dhigtaan haddii alla yidhi quluubta inaad isu furtaan walaalowdaan waxa dhibka deegaankan haystana aada wax ka qabataan kabacdi aad ka soomaaliyeed wax ka qaban kartaan laakiin nin asigaba gurigiisii ku rafaadsan mid soomaaliyeed waxba kama geliyo war dadku waa dadka la sugayaad ka mid tihiine inta degaankiina iyo dadkiina wax u qabatiin soomaali inteeda kalena wax u qabta awooddeedii aad leedihiin dadnimadeedii aad leedihiin degaankeedii aad degantihiin laakiin shuruudda ku xiran waa saas heshiis reer koonfur galbeed oo heshiis soomaali heshiis muxuu ahay waxay ka yihiin qayb weyn ka yihiin kana noqon karaan haddii alla yidhaah aad iyo aad ayaan mar kale idinkugu mahad celinaa soo dhoweyntii iyo marxabeyntii iyo marti sharafkii aada noo fidiseen aad iyo aad ayay xusuus noogu reebtay in sha allahu tacaala deegaankaana waa kusoo noqnoqon doonaa marar badanaan imaan doonaa madaxweyne cabdicasiis aad u mahadsan yahay meel aan usoo laalaabanana waana si wuxuu yiri gogoshiina waatana waa usoo laalaaban kartiin marka ilaahay idinkiis meeshaan waa ku badnaa doonaa dadaalka deegaanka iyo dadka iyo muxuu ahay farxadda la qaybsigeeda iyo xanuunka la qaybsigiisa iyo dagaalka la qaybsigiisa iyo guusha la qaybsigeeda intaba qaybaan idinkala nahay haddii alla yidhaah waana idinla joognaa garabkiina allaha galo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu